wariyihii hore ee idaacadda BBC-da Cabdullaahi Xaaji ayaa waxay warar soo taraya sheegayaan in la waayay isla markaasina la weysan yahay tan iyo 31 bisha tan oo ay ka soo wareegtay muddo 2 maalmood ah. Cabdullaahi Xaaji oo ahaa 82 jir isla markaasina ahaa mid ka mid ah wariyaashii ugu caansanaa uguna rugcadaasanaa wariyaasha Soomaalida. BBC-da ay wax u shaqaynayeen muddo ka badan 40 sannadood. Iminka waxa uu ku jiray retirement ama howlgab. asxaabta iyo qoyska Cabdullaahi Xaaji ayaa waxay sheegeen in wariyihii hore uu markii ugu dambeysay lagu arkay train stationka ama xarun laga raaco tareenada oo la yiraahdo Victoria. hay-adda qaabilsan dadka la waayay sidoo kale booliska magaalada London ee dalka UK ayaa waxay isku dayayaan isla markaasina ay si adag uga shaqeynayaan sidii wariyaha loo soo heli lahaa. haddaba waxaa laga codsanayaa qof kasta oo arkay inuu ku soo hagaajiyo lambarada shaashada ka muuqda waa 44 ama 44 dalka Ingiriiska ayaa waxaa la sheegaa in daqiiqadiiba la waayo qof, taasoo sababtay in la aasaaso hay-ad loo sameeyay inay baadi goobto ama ay raadiso dadka la waayo. waxaan u rajaynaynaa in Cabdullaahi Xaaji rugcadaagii Soomaaliyeed ee wariyaha ahaa isaga oo caafimaad qaba waxba gaarin dib loogu soo helo isla markaasina uu dib ula midoobo qoyskiisii. fadlan muuqaalka like saas uu dad fara badan u gaaro si loo raadiyo amaba loo helo cid bal meel uu jaan iyo cirib dhigay maxan saridin.